shirkan oo muqdisho ay ku yeesheen waxgaradka culimada nabadoonnada aqoon-yahanada haweenka iyo dhalinyarada beesha hilibid darandoole mudulood waxa ay kaga hadleen matalaadda siyaasadeed ee beeshu ay ku leedahay siyaasadda dalka si gaar ah waxaa kulanka looga hadlay helidda beesha doorkeeda maqaamka caasimadda muqdisho aqoon-yahan cabdulaahi maxamed muuse nabadoon cabduqaadir axmed walaal xildhibaan hore nuur xaydar iyo sidoo kale maane cabdulla abuukar oo madasha ka hadlay ayaa ugu baaqay madaxda dowladda federaalka in muhiimad gaar ah beeshu ay ku yeelato siyaasadda dalka. annagu cid kastoo aan leenahay xuquuqdiina wakiili kartaana waa aadaynaa, ama ha ahaadeen dhaqameedyo ama mas-uuliyiin ha ahaado ama cid kaleba ha ahaato. geed dheer iyo geed gaaban waxaan u fulaynaa insha allah inaan xuquuqdeena helno. waxaa xildhibi mas-uul ka ah madaxweyne farmaajo iyo xasan cali khayre. xilkaas haddaan weynana iyagaa noo diiday, cid kaloo qabsanayna male. waxaa kaloo mas-uul naga ah guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish. haddana waxaan rabnaa inaan u tagno cumar finish asagana oo naqaabilo annagoo hilibe waa kuu soo soconnaa naqaabil. mar rabno inaan xaqdara ku qaadano wax jiritaankeenii inaan maagsoonta waxaan dhahaanaa inaan la qadariyo. marka insha allah waxa waaye waxaan ka codsanayaa wax inay positive ka soo baxaan. maantana waxaa ku dhex jira tolkeyga ka dhex bixi maayo tolkeyga aniga waa taan u dhashay. mudane madaxweyne xaqayna waa inaan helnaa. haweenka soomaaliyeed waa heegan daacad ah ma kasteen. waxaan u halgamaynaa xaqayna inaan helno. mudane ra-iisul wasaare waxaan u doodaynaa inaan xaqayna helno. geed gaaban iyo geed dheer waa u koraynaa. ugaas maxamed weli oo isna kulanka ka hadlay ayaa fariin u diray madaxda dowladda federaalka. 30 sano wixii ka jiray Soomaaliya inaysan beesha hilib darandoole aysan ku soo noqonin dhibaatadii ahayd in xaqdoosiin iyo qof kasta xaq u leeyahay uusan helaynin. maanta waxaan u taaganahay 30 sano ugu dhamaaday waxaa loo taagan yahay in qof kasta xuquuqdeeda ay hesho. Soomaaliya waxay u socotaa in doorasho qof iyo cod ay hesho. waxaan leenahay ama aan codsi u soo jeedihaynaa madaxda maanta kuraasta ku fadhida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha, guddoomiyaha baarlamaanka, aqalka sare xuquuqda ay beesha hilibka ku lahayd 1935 uu asoo Talyaani gumeysi ku haysta Soomaaliya uu tixgeliyay. waxaan codsanaynaa inay haddana beesha ay dib u weynin. teeda kale waxaa aniga yaab iyo fajac ila ah in aqalka sare uu dhex fadhiyo gobolka banaadir oo haddana xuquuq uusan siinin dadkii gobolka banaadir ka soo jeeday ama lahaa uu rabo inuu taas ku maamulo. marka waxaan leenahay aqalka sare dib ha u fiiriyo deegaankii dadka ka soo jeeday xubnihii uu lahaana ha ku daraano waa haddii ay rabaan wanaag. teeda kale waxaan halkan ku taageerayaa shirkii ka dhacay magaalada Jabuuti oo Soomaaliya iyo Somaliland lagu heshiisiinayay. wixii ka soo baxana taas aad iyo aad ayay beesha iyo intiba nabadda iyo Soomaaliya jecelba ay taageersan tahay. qaasatan beesheena waxay diyaar u tahay Soomaali weyn inay israacdo. ugu dambeyn kulanka maanta ay waxgaradka iyo aqoon-yahanada beesha hilibid darandoole mudulood oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxaa laga soo saaray war saxaafadeed ku saabsan waxyaabihii kulankan uu ku saabsanaa. beesha hilibid darandoole waxay ku baaqaysaa in xaqa iyo cadaaladda la helo lagana gudbo xalkii 30 sano na ragaadiyey ama dib noo dhigay oo noo diiday inaan dowladnimo gaarno. sidaa darteed beesha hilibid darandoole waxay soo dhaweynaysaa in la dedejiyo oo la keeno maqaamkii matalaadii iyo maqaamka gobolka banaadir. isla markaana beesha hilibid darandoole waxay u taagan tahay inay qaybtii ay matalaada gobolka banaadir ku lahayd la siiyo oo ay hesho hadduu ilaahay yidhaahdo, iyadoo si toosa arrimaha beesha lagala soo xiriiri doono dhaqankoodii oo u weyn yahay ogaaskii iyo nabadoonnadii halkan ku sugan yihiin. maadaama siyaasigu uu yahay farac dhaqankiina uu asal noo yahay. taa ayay warmurtiyeedka kusoo gabagabeeyeen. wabilaahi towfiiq. maxamed iidle raadiyaha iyo telefishinka dalsan magaalada Muqdisho.